الله الرحمن الرحيم استوديوها مقالة روم أي كلية تلفزيون كصومالي سات أيام مانتا وحا نقصو بوقدي محمد علي أو كميته دلنيرة مقالة روم وكبرتي إن مده نجوبه إلا إمن كان وصل شقهلين محمد علي أيا وحكوي دينينا بل سيدا أي كنوريهين دلنيرة الصومالي ده gaar ahaan dhalinyaradii ugu dambeysay dhinaca safarka tahriibka loo yaqaan kusoo galay wadankan Talyaaniga bal ugu horeyntii Maxamed Ali waxaad warbixin naga siisaa ka hor inta aadan Talyaaniga imaanin ma jirtaa dhibaatooyin aad kula soo kulanteen safarka tahriibka bismillaahir rahmaanir rahiim fursadan qaaliga ah ee Soomaaliya saadada ugu hambalyeynaya waa jirtaa in dhibaatooyin badan la soo maray 2009kii bishii 8aad ayaa aniga wax ka soo baxay Liibiya Lampedusa ayaa dib liiga celiyay oo wadanka Liibiya lagu celiyay haddana waxaa soo tahriibay mar kale 2009 bishii 10aad October hadda mar kale soo galay Talyaaniga 2010 bishii 6aad aan sharci ka qaatay Talyaaniga siiyeen inaan qaxooti ahay kadib waxaa soo degay magaalada Roma waxaan sameeyay inaan waxbarasho sameeyo xagga luqadda ayaa hal sano baranayay waxaan sameeyay koorsooyin badan oo sida xagga alxanka waxa fabrikada loo sameeyo shahaadaha tawaysiin oo Union European loo shaqeysan karo ilaa hadda wax shaqo aan ka helo saas u weyn ma jirto inkastoo aan ka helay Mediterranean cultural linguistica oo laba bari saddex bari mar ay tahay mar oo joogto ay saaheen wadanka Talyaaniga waxa hadda shaqo jiro oo aan dhigi karo shaqo ka jirto ma jirto qofka wax bartaa iyo qofka aan baran isku mid yihiin micnaha dadka Soomaalida wax profession aysan ku shaqeystaan miyaysan iyagu lahayn oo wax ma soo baranin miya mise qof kasto wax bartay mise qofkii aan wax baran labadooda waa isku mid haddii aad wax soo barato wadanka wax ku soo barato shahaadada kuwan ma aqoonsano haddii aad samayso koorso 6 bilood ama 8 bilood ama hal sano qofkii markuu soo dhamay koorsadii wuxuu u baahan yahay wuxuu ku rajooyaa inuu shaqo ku helo koorsadii hadduu qofka ku helin meesha ku nibijaa marka waxbarashadii maadaama markaan 2 sano ama hal sano wax qaraacay qofkii ii jeeday oo waxbarashadeeda aan waxna hadda ku haynin qof walba kan ii jooga marka inuu wardo dadka ku kala fiisan ilaa hadda 2010 bishii 6aad ilaa hadda Talyaaniga jooga wali wadamada macaan Scandinavian wali isku soo dhiibin oo hatta wadanka wali jooga walina waxa ka sii rajooyaa inaan sii helo shaqo ama rajadaas aan qabay ilaa hadda wali waxaan ku helo ma jirto ka waran farad intee la eg ayaa u dhaxeeyo waagii aad Liibi joogtay oo hamigaaga ku jiray Italy haddaad aad tagtid waa shaqaysan doontaa qaabka u noolaan lahayd Italy marka aad ka sii fikirtid iyo maantadan la joogo qaabka Italy la sheegayo u taalo farad intee la eg ayaa u dhaxeeyo waayo dad badan ayaa qorsheynaya oo aaminsan in wadankan Italy mise Europe guud ahaan in wadan uu ay barwaaqo taalo shaqo badan taalo lacag badan laga helay dad badan ayaa aaminsan oo hadda qorsheynaya inay safarkii dhibka badnaa soo gashay oo kale ay soo galaan فرق وين أو ده قفك بنادم قفك سومالي جومانت كم فكره بريء مع عملة ده معاه معاكو عشان كم فكره ماشي قفك مركو الصبح وساق وحكو فكره حكي على سكرتاس كي على سواء كعون دون تعاو أما ما أنت خلوا دون تعاو مركو كسر نظر كي عاو عشوا دون تعاو كو فكره تكررت هايسك دد بدنا laga yaabaa oo ku daawana inaysan ka siin bar u macnay meel wax laga cuno waaye oo meel wax dadka laga cuno qofka ما يا Talyaaniga meelay dadku u kariyaan oo ay wax siiyaan waxay soo iyaga soo kariyaan ay soo kariyaan laga sii waa dadka dhalinyarada marka dib ka jiro ugu laga yaabaa marka waxyaabaha si raashin maadaama ay soo karinayaan raashin bisil dadka wax soo karinayna ay yihiin dad aysan markaas muslim ahayn ma laga yaabaa in doonfaari wax la mid ay soo kariyaan oo raashinka ay ku soo dhaxtaraan maya way ku sheegaan way ogyihiin qofka muslimka ugu madraahay sida sheegaya laakiin waa soo karinayaan la ku daraan naga ma sheegi karno laakiin qofka danta ugu qasbaysan inuu cuno tii oo raashinka meelo aad kale mana qof xal dhan roob ku daay saakadan qabowhay oo darbi jiifay inuu cuno danta ku kala fiirsan raashinkaas meeyay marka raashin adiga aad dalbanaysid canjeero mise bariis mise baasto waxaad aad dalbanaysid mise wax diyaarsan oo iyaga ay soo go'aamiyeen oo ma aragtay lagu siinayo adiga waa wax iyaga ay soo gaabeen barnaamij sugunta iyaga ay soo gaabeen qofka uu doonanayo uu qaadanayo
waxa wadamada dhan dadka Soomaali bismaa Eritreanka jooga ummadda dhan wada joogto qof walba qaxootiya halkaas aad u doonto ma meesha lagu cunaa mise waa la qaataa ma meesha lagu cunaa badanaa dadka Soomaaliyeed markii hore waxay iska deganayeen safaaradaas ama guri loo dhaan nin deganaan jireen safaaradaas qofka marka 2 eer ama 5 eer ama 10 eer haduu soo xamaasho meeshiisu wax ku korsin jiray oo wax isiga cuni jiray laakiin hadda tan qofka hal euro 2 euro isku darsan jireen isku darsan jiray meesha wax lagu korsin jiray meesha wax lagu cuni jiray oo dadka sameeysan jireen laakiin hadda tan qofka shino shanta qof helo kii shanta ka soo dhamaadana inuu darbigiisa xaga waa khasab ku khasban yahay qofka haduu san guri kireysan karin oo meel kira oo istayn dadka badan majority dadka badan maadaama horta qofkii markaas nolol haysto laakiin qof kale dhibeen oo Soomaali oo darbiyada jiif ayaa jiro oo waatahay waxaa la sheegaa dad badan oo Soomaali ah inay ma aragtay birta qaateen micnaheeda ay balwad awal aysan lahayn jirin hadda ay barteen beer inay cabaan wadooyinka ay ku dhacdaan mismeela ay seexdaan maxaa sababay islaadaha arrintaasi qofku xasab saaki markuu roob ku daayo caaw roob ku oo darbi u jiifo dad barboon lahaa jiro dadkii ka mid noqon qofka qamradu iska cabaa baakin uu gala hal eer ka soo qaadana booliska markaas ma wada tixgelinaya qofka baakiisa meesha gala asiga baabuurta meesha la gashto oo gacanta u taagana markaas booliska waxa ma dhahay qofkii waa qofka doo cabsan yahay yurubtan qof sharci waxba kuma qaadaya qofkii marka wuxuu doorbida hadduu asigoo fiyo meesha u tagi lahaa oo hal euro weydiin lahaa oo loo diiday askari ayuu ka cabsanaa marka wuxuu doorbidaa inuu qamri cabo ma aragtay asiga oo number 1 oo ishabeeyo qofku markuu horeysa duu qamrada ka soo jeesto booliska waxa ma dhahay waa ka tagaya waa nin cabsan le wax ma dhahay halkiisu oo gubsana marka qofka laakiin hadduu qof fiyo yahay waa la xiraa sharciga laga qoraa waa qofkii dhibaato badan la geeyna maxkamada laga wacaa laakiin ma dhici lahayd haddii jaaliyad Roma ay ka jirto oo qofkii shaqo la'aan shaqo loo abuurayo intay safaarada Soomaalida shaqo idin soo raadiso shaqo idin geen lahayd ma dhici lahayd qof asigoo macallin dugsi ahaa mise wadaad ahaa mise sheekh ahaa mise dhalinyaro caadi ahaa oo waalidkiisa iyo dadkiisa guri xitaa loo soo gaday laga yaabo oo ku soo safray meesha imaaday lacag laga sugayo shaqo sugayo in oo qamri cabo mise beer oo cabo ma dhici lahayd haddii arrintaas lidin sameeyo ma dhici lahayn horta soo meeshaan Roma markay amid aan 2010 ilaa hadda waxa ka jiro wax community dhaho ama jaalid Soomaaliyeed ma jirto ashiisooyaal ayaa jira ama NGO dadka soo yaqaanaan oo shakhsiyad uu leeyahay marka dadkaas qof walba wuxuu jecel yahay one man NGO qof walba uu leeyahay dadka wadanka loo soo wareey oo 20 sano ama 30 sano deganay qof walba wuxuu ku leeyahay sijarada koobiga keen 100 qof 200 qof intuu sijarada ka koobiyeysto leeyahay wax idin keenay ana shaqo idin keenay qofkiina dariis hor u sirraacana ma soo noqon wuxuu soo qaato wax asaga ku eeg waayo meelis documentiga markuu qofka qaxootiga laga koobiyeysto muxuu ku sameeyaa wuxuu inta qof haya oo dhibaataysan oo Soomaali ah waxay u baahan yihiin in shaqo la siiyo in guriyo la siiyo ay u baahan yihiin oo leeyahay marka hore doodaas uu sameeyaa ka dambe wuxuu soo qaato wixii wax asaga ku kooban qofka noqona حتى قف كان ولالكيسا قف كي دبات السنة ما جت حتى هدي مرك العجب تقصو قطع دبات مالهان وقف ددالو واي لكن حلو بها شقة ما كانش نقفكي وأوكينا شن قف أما توقف هدو سنة كانت شغلة صيغة تذكر السيد برلاين أنا نقول شو لي حاجة وحين نقول هاد مال سريع يتيجي لهاد سنة كيف هدي توقف شقة يشوف أما ليه تبرد ما قف شقة شن قف يشوف لكن قف البسطورات قف كان كوبينا كان كوبينا تمام قف أي جوا كتير تودا كان مرك قف واحد جاريد لده أما Soomaali leedahay Roma ka jirto ma jirto waxa ka jirto miyaa waxa idin qabatay marka safaarada Soomaalida iyadu ma jirto anaga dhalinyaro ah oo gaarayna 200 anaga markii arrintaas aragnay waxa go'aan ku gaarnay dhalinyaradeeni oo taariikhku ku yimid wadanka oo Titanic lahaa in anaga isku taxaruujino maadaama luqadii baranay in anaga isku gaamino oo hor u socono ayaan go'aan ku gaarnay shir ayaan qabsanay waxaan doornay gudoomiye ku xigeen xogeeyo markaas sidii sameynay waxa dhacday in aan u tagno ambassadorka maanta goobjoog ku ahay habkii doorashada u dhaceysay ambassadorka wuxuu dhahay waxa ay ku soo dartaan gabdhihii waa gabdho shaqeysto oo jaaris ama waqti uma hayaan in ay ka soo qayb galaan howlahan dadka marka wax inay sameystaan u baahan orday waa dhalinyarada wiilasha ah waa gabdhihii waxay dhahan anaga wax walba aan noo soo gaamisan diyaar adii nahay laakiin wax qabanaysi wax qabsadeen anaga wax idin ma diidano anaga waa ku noqon ambassadorka maxaan maadaama barfutuuradii wadankii meel walba waraaqo dad u yaalaan ee leeyahay community jir qofkii community-ga anaga aan arkaynin waxa ka codsan inuu asaga anaga dhalinyaradeena ahaan
warqad aqoonsi warqad aqoonsina sida anaga isku hogaamin oo u raasano aan isku badbaadin wadanka ilaa hadda waxa ka soo wareegtay muddo hal sano ah ilaa hadda wax jawaabna ma uusan wax oo ilaa hadda waxaan ka hayno muddo saacada la joogo waa tahay haatan marka isbarbardhig ku samaysid dhalinyarada Rome ku nool inta shaqeyso intaan shaqeyn kuwee badan intaan shaqeynaa badan inkastoo la isku dulnool yahay dhalinyarada isku dulnooshahay laakiin qaabka la isku dulnool yahay waxaa la isku dulnool yahay maanta ani markaan shaqeeyo guri kireysto qof 2 3 kala guri wax ka cunayso ila degan qof walaalkii oo shalay soo galay qaar abo bishataa 2 beri 3 beri soo tuurto shaqada iska jirto oo hataa shaqadaas oo lacagti bil 2 bil ka dambe mar la siinaayo marka dhalinyarada guri adniin la degan oo isku dulnool wala isku dadku waa dad isku nool dhalinyarada halkii qof oo shaqeysto 20 mise 5 qofood ku sii dulnool oo guriga la degan raashinka la cuno waxa qasab qofku ku qasban yahay waa inaan wax ku qasbantaa qofkii waa tahay inta badan dhalinyarada waxa la yiri Rome ku nool mise qurbax ku nool lambarada numberka loo yaqaano oo dibadda laga soo wacay ma qabtaan maxaa u sabab ah maxay u qaban laayeen ma waxa jira cabsi ay ka qabaan waalidiintoodii iyo dadkii Soomaali saaxiibadooda ay ka soo tagay inay lacag ay soo weydiiyaan maadaama iyagu aysan shaqo haynin mesela lambarada numberka oo aan la qabanayn maxaa sabab u ah waxaa sababa marka maadaama aad guri lagu soo gaday ama 5,000 ama 10,000 dollar lagu soo dhiibay oo lacag laga soo dhiibay wadanka aad timid hal sano oo diis wadanka luqada aan barana waxaan barana liiso marka wixii baratay ilaa haddana qofna wax la tiri karin qofkii waa waalidku wuxuu sheegay markaas ama ku qanciyo ma jiri karto markaas waa inuu waxa laga yaabaa inay aaminsan yihiin aad iska raaxaysanaysid oo adduun kale aad dhaxgashay oo Europa aad joogtid oo dadkii iyo wadankiiba aadan muraad ka lahayn qofku waxa la isleeyahay wax dan oo kale dadkii ma jiro laakiin qofkan waa qof tiisi haysto orod ku jiro subaxii wuxuu soo kacaa ala sabta ama alixdii oo aruurnimo soo istaaga ilaa galabtii orod ku jira shaqaynta kiraadi agensiga tag inkastoo dadkii kale ay naga fiican yihiin wadanka ku nool ay leeyihiin jaalido anaga dadka wadanka nooga soo reeyay oo Soomaalida ayaa dad disha ah oo aad dad u xun ah maadaama qof walba uu jecel yahay asaga dantiisa inuu ka hormariyo danta walaalkiisa oo qof walba hadii inta dadka isku yimaado oo waxba isku moogaado dadka qof hal qof hadii la doorto waxa macquul Talyaaniga inuu wax walba ogolaan albaab la qaraaco la dhihi laakiin iyaga wax isku ogolaan iyaga soo taagan hatta qofka ku nool Rome shantarka 6 bilood ka soo dhamaana uu baxa meel qofka aadamaha uu soo noqona hadana inuu marka qofku waxa ku kalifaysan inuu ardo marka oo Yurubtan kale oo 6 bilood xilliga qowwa waxa ku soo noolaada dadka ku kalifaysan waa tahay gabagabadii barnaamijka maadaama aan ku dhownahay waxaan ugu maqaala misaba ay jirtaa in ma aragtay safaaradii Soomaalida ee ku leed magaalada Rome la kireeyay oo ma aragtay gurigii magac Soomaaliyeed laga tirtiray dad Italian ay kireysteen oo alberga laga dhigay mise hotel laga dhigay Soomaalidiina sidee idin saameysay arrintaasi maadaama meeshaas ay ahaan jirtay meel qaxooti badan ay ku nool yihiin sideeda barto guri kiro markii la 5 sano ama 6 sano waa macquul oo guri wada kireyn karaa laakiin guriga hadda guri kiro oo 18 sano waa cunug hadda dhashay qaan gaari doono marka guriga horta guri kiro oo guri gacanta Soomaali ka baxay oo maadaama calankii laga dejiyay على aqoonsigii Soomaaliya ee leeyahay baashitada ahaana ama safaaradda laga fujiyay dadkii dhalinyarada halkan ku nool waa dhalinyaro aad iska xogaa oo awood aan u lahayn in ay mudaharaad sameeyaan maadaama jaalid aysan jirin dadkii hore wadankan u deganaane qof walba uu ka gaabsaday inuu sheego waa diidayahay sida hadda anaga jaraa'idada Talyaaniga ku aragnay ama idaacadaha Soomaaliya ku aragnay 2 qof bas ka hadlay dadkii hore wadankan deganaay gabar shuglo dhaw iyo awkaati hore safaaradda ducaale لأنه ده هو أبوكات الدعاء. لا بدل أبوكاتها. سيد الشيء هوا ولا بدل سيد الشيء هي مركب وحام مقالة أنا حتى تنتك عد كهذا الشيء اللي حتى تعمل عد مو شيء ما جبت حتى لو حكون شيء إن وضنك وحاول على تي إنه كبحي كميل جاركي كألة الدولة كميل جار رسمي فدرالي كألة تي سيد هذا فريزا تورينا ميلانو بنا بحي على جسمي أو في حفلة اللي قلت هيجير أيوه دولة اللي قلت هيجير أيوه لكن روم كم سنة إلا حدرتان واحد يقول تاجر دولتي أما رئيس الوزراء هذا دورته أما العليا هذا دورته سفارة وحي هي تقولي Soomaali badan qaxootiya aan shaqo haysanin qaabka ay ku nool yihiin adiga aad noo sheegtay ayaa deganaan jiray inta bacyahooda la soo qaaday banaanka loo soo dhigay ayaa la kireeyay sa adiga aan wada ognahayba marka dawladda Soomaaliyeed
maadaama anagu Soomaali nahay Soomaalid kahay Roman aad ku nooshiin maxaad ugu baaqi lahaydeen maxaad u sheegi lahaydeen arrintan inay soo fargeliso wax laga qabtaa mise ma aragtay arrintan maadaama la kareeyay mise la kareestay oo nin mas'uul ah meeshii arrintaas uu sameeyay inaad isaga aamustaan way dawladii maxaad ugu baaqi lahaydeen anaga waxaan sheegay horta gurigaan 40 sano hadda ka dambe soo socoto inuusan dumaynin guriga shubkiisa iyo tirarka uu leeyahay guri aniga waa deganeen guri dumay hadda ma 40 sano hadda ka dambe soo socoto xoogaa arrinti la mariyo oo dayactir yar lagu sameeyay gurigan guri hadda dumay ma aha guriga waxaa ugu baaqayna dawladda Soomaaliyeed in dadka guryaha gadanaya ama kireysanayo oo mas'uuliyadda sheeganayo in wax laga qabto oo dadkii qof Soomaali oo deganaanshan laga saaray haddana in qof Talyaani laga kireeyo oo albeerka laga dhigo oo meel dadka jirkooda lagu gado intay xaalad inuu deganaado cunugii Soomaaliga soo taagay oo cashuurta hooyadiis iyo aabiis laga qaaday lagu dhisay gurigaas inuu deganaado ayaa dhaantay intuu wala kireyn lahaa oo qof shakhsi cun la lacagta aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Cali wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida ee ku nool wadankan Talyaaniga wuxuuna waraysi gaar ah siiyay telefishinka Somalisat gaar ahaan barnaamijka waraysyada aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaana jiri doona waraysyo kale oo aanu la yeelan doono qaar ka mid ah waxgaradka iyo dhalinyarada Soomaalida ee ku nool wadankan Talyaaniga gaar ahaan caasimadiisa magaalada Rome